بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. magacaygu waa Ustaad Mahdi Maxamed Cumar, hormuudka kulliyadda maamulka dhaqaalaha. Waxaa Ilaahay mahadiisa inay si qurux badan noogu soo gabagabowday maalintii ardayda ee kulliyadda maamulka dhaqaalaha ama Ecom Day. maalmahan soo aadan ilaa iyo dabaqiiqada bishan iyo bilowga bisha hore maalmihii barnaamijyada ardayda ku soo bandhigi jireen barnaamijyada dheeraadka ah casharada kalaaska iyo waxbarashada oo ay ka mid yihiin hibooyinkooda gaarka ah iyo abwaanimadooda iyo gabayadooda iyo waxyaabaha ay kalaasyada iyo casharada ay ka dhigteen oo ay ku bedeleen si practical ah oo ay kaga hadlayaan sida ay bulshada u saameynayaan oo looga faa'iideysan karo iyo fahamkoodii iyo inta ay kororsadeen. maanta waxaa ka mid ahaa barnaamijka Ecom Day barnaamijyo aad u kala duwan oo ay ugu horeeyeen inay ardaydu ay soo bandhigeen fakaro ganacsi ayagoo soo qiimeeyay baahiyaha suuqa ka jira kadibna xuluul u soo raadiyay xuluushaas oo ka jawaabaya mushkiladaha suuqa yaala sidaas si lamidana ay ayaguna ka sameyn karaan lacago shaqooyin iyo jaaniseen ay ku abuuran karaan. sidoo kale barnaamijyada la soo bandhigay waxaa ka mid ahaa inay ardaydu mawaadiic furan oo lagu kala aragti duwan yahay ay ka doodaan. sidoo kale ardaydu waxay soo bandhigeen gabayo, waxay soo bandhigeen geeraaro iyo barnaamijyo kale oo aad u badan. waxaan rabaa dardaaran yar inaan u soo jeediyo ardayda dhigtaan qaybaha kala duwan ee kulliyaddan. hoggaanka qof walba ee ka mid ah inuu leadershipka iyo managementiga uu xoogga saaro waa skill berri suuqa markaad tagto si weyn ku anfici karto. waxyaabaha ku anfacaya waxaa ka mid ah dad la hadalka. qof walba idin ka mid a ama report ha soo jeediyo berri ama shir iyo meeting la joogo ha ka soo jeediyo presentation iyo mawduuc uu rabo inuu dad ka gado ama sales ha sameeyo qof hadduu rabo ha kaga dhaadhiciyo fikrad ama negotiation iyo ha galo discussion iyo debate. dad inuu la hadli karo waa xirfad skill dadka hore inay muhiim u tahay laakiin si gooni ah dadkii loogu talagalayna inaad adigu tihiin ayaan rajaynayaa. marka inaad iska dhistaan ereyadaas oo qofku uu ku dadaalo fasalka uu isku dayo uu kusoo practice gareeyo inuu soo hor istaago uu ardayda la hadlo oo uu maamulada fasalka uu wax ka qabto oo ilaa kuliyaddii ilaa jaamacaddii uu soo gaaro inuu skillkaas yeeshay. waa maalin looga nasto casharada waxay ka mid tahay maxaa la yidhaahdaa extracurricularka activity-da u qorshaysnaa kuliyadda iyo jaamacadda. waan ku faraxsanahay waana ku mahadsantahay. allah waa bahay dhowr wixii dhiba ka dheereey rabbow adiga ii dhowr dhalaalkii jannadiyo guryihii la dhowriyo dhaxalkaas ugu deeq. magacaygu sidaa maqasheenba waa kaafisan uu diiriye dhigato bangi am finance BF 211. waxaan rabaa inaan soo jeediyo mawduucan isleeyahay waa muhiim in laga hadlo ama la taabto. ciwaankiisuna waa dhabargo'a shilinka Soomaaliga. intaanan gudaha u galin ka hor waxaan rabaa marka hore inaan sheego waa maxay lacagtu sida ay qabaan economists-yaasha ama dhaqaalayahanada wax walba oo lagu heshiiyo in wax lagu kala bedeshto ama deyn la isaga bixiyo. dhalinyaro fiican wuu tago tiigsay meel sare tabantaaba iyo waxay degeen meel tigaad badan beerihiina intay si talciin mid ka tuunsheen tacliin iyo waxay wada barteen tiirka nololeed markaas ay waxay taamayaan taawarkii sare. annaguna waxaan taagannahay toobiyihii baas tol ahaan midkii noo xigaan waran ka taagnaa takoorka u sii dheer midkii tabar u liitaa. competitive advantage maxay tahay marka waxa ugu duwannahay annaga dadka suuqa noogu soo horeeyay maxaa ugu duwannahay dadka suuqa noogu soo horeeyay waxa ugu duwannahay specific place in anaga leenahay oo ah goob gooni ah. barnaamijyadan waxay tababar u yihiin iyo u sii gorfaysi isbuuca dhaqanka ee jaamacadda oo bilaha soo socda nagu soo aadan oo ardaydu jaamacadda oo dhan halkan markay hadda ka tahay kulliyadda maamulka dhaqaalaha kaliya ee jaamacadda oo dhan ay ka qayb geli doonaan haddana ay isu sii tijaabiyaan ayna usii helaan stage ay kusoo bandhigaan kuna sii tijaabiyaan ra'yiyadooda iyo fikradooda kala duwan ay halkaas la shirtagi doonaan maalinka iyo isbuuca arrimaha ardayda ee jaamacadda. insha allah waxaan aad u bogaadinayaa dhammaan ardayda kulliyadda ee ka qayb qaadatay tiimka maamulka oo ardayda ee kulliyadda ee soo diyaariyay barnaamijka hoolka qurxintiisa aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaa muujiseen kartiin iyo dadaalkiina.